afhayeenka isimada dowladda Puntland Garaad Cabdullaahi Cali Ciid ayaa si weyn u soo dhaweeyay magacaabista la magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon isagoo tilmaamay in talaabadan ay tahay mid hore loo qaaday mar uu waramayay TV-ga caalamiga Home Cable ayaa garaadka hadaladiisa waxa kamid ahaa Bismillahir Rahmanir Rahiim ra'iisul wasaaraha cusub Cabdi Faarax Shirdoon waan hambalyeynaya waan soo dhaweynaya waan u duceynaynaa wixii wanaag Soomaaliyeed la xiriirana afiyadii wixii aan kari karno waxba ka kaydsanayno dhinaca kale garaadku waxa uu baaq u diray isla markaana ku booriyay ra'iisul wasaaraha cusub inuu cadaalad ka shaqeeyo ra'iisul wasaaraha cusub horta waxay ila tahay kulliba inuu dhiiran yahay xilligan jira ummadan jirta dalkan jira ninka u bareeray inuu mas'uuliyad hogaamineed u qabto nin dhiiran inuu yahay bay ila tahay taas waa qodob ku xiga waxa weeyaan Soomaaliya xog ugu dhiman imanka inay jirto ilama aha aatee waxaan xusuusan u leeyahay meelno ma fayo Soomaaliya dad iyo daltoona meel u fayoobin ma jirto waxaan kula talinayaa waxaan leeyahay haddii nabad la waayo nolol jiri mayso haddii dulqaad la waayo dadnimo jiri mayso haddii cadaalad la waayo midnimo jiri mayso haddii wax la hubin waayo hawl qabsoonaysa jiri mayso runtii haddii si ay noqoto in inta wax la hubsan waayo la damco in hawl la qabto hawsha la qabto daa'ima waxay noqonaysaa dhicisa ayay noqonaysaa inta oo arrimood oo hadda aan sheegay waxaan leeyahay muddadan garaadku sidoo kale waxa uu ku baaqay in bulshada ama ra'iisul wasaaraha cusub iyo shacabku ay isla shaqeeyaan si looga baxo buu yiri tafaraaruqa inta badan hareeyay ummadda Soomaaliyeed iyo madaxdii ka horeysay Ahmed Sham Home Cable TV Boosaaso.